السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودة هذا أخيارت كحرا دارليبان أكاديمي. Types to learn English. Types to learn English. تلوينك لو برتو إنجليزكا. Don't be in such hurry to move up a level. Concentrate on the level you are at now. Don't be in such hurry. هدقدقين to move up a level إنها كجورتد هيرك أتاي أما أكبودت. Concentrate حوك سار on the level هيرك you are at now at هذا تاي ومعناه هذا تاي هبدبودين وحوك سار level كأما هيرك أد مريسو. Don't be in such hurry. هدقدقين to move up a level in at هيرك تاي أكبودت أما أكجورتد. Concentrate حوك سار concentrate حوك سار on the level you are at now هيرك أمريسو. Don't be afraid to make mistakes. هكبقين in أسميسيد خلطات. Be confidence. نقوم من اسكو كالسون. People can only correct your mistake. dadku waxay kaliya ay sixi karaan khaladkaaga when they hear you markay ku maqlaan. Waa ka cabsan inaad qalad samaysid. Don't be afraid to make mistakes. Ha ka baqin inaad qalad samaysid. Be confidence. Noqo mid isku kalsoon. People can only correct your mistakes. dadku waxay sixi karaan khaladkaaga when they hear you markay ku maqlaan. oo ha ka cabsan ereyada inaad pronunciation-ka ama qalada dhawaqoodi ama wax si ka yihiin adiga kaliya isticmaal waxa aqoontaada ama aad baratay. Give yourself short term goals. naftaadana waxa siisa short term goals hadafyo gagaaban oo waxaad qaban karta. And reward yourself. nafsadaadana abaalmari when you achieve each one. mid walba hadafadii aad dejistay am jadwalkii ku degsanaa mid walba markii aad ku guuleysatid nafsadaada adiga is abaalmari. Give yourself short term goals. naftaada waxa siisa hadafyadii gagaabna. And reward yourself when you achieve each one. mar walba hadafkii ama yoolkaagii aad gaarto mid kamid ah is abaalmari adiga. Practice the 4 gap skills. sidoo kale waxaad tababar ku samaysaa 4 xirfadood: reading aqrinta, writing qorida, speaking ku hadlida, and listening iyo dhegaysashada. They all need to be work on. dhammaan waxay u baahan yihiin inaad ku shaqaysid for you to improve your speaking the language si aad sare ugu qaadid ku hadalka luqadda. Practice the 4 gap skills. 4 xirfadood samee oo ah reading aqrinta, writing qorida, speaking ku hadlida, and listening iyo dhegaysashada. They all need to be work on. dhammaan waxay ka rabaan intaas 4taas inaad ku shaqaysid for you to improve your speaking the language si aad sare ugu qaadid ku hadlida luqadda. asoo marina. Don't be in such hurry to move up a level. Concentrate on the level you are at now. Don't be afraid to make mistakes. Be confidence. People can only correct your mistakes when they hear you. Give yourself short-term goals and reward yourself when you achieve each one. Practice the 4 gap skills: reading, writing, speaking, and listening. They all need to be worked on for you to improve your speaking the language. Otherwise, وما سنتين أخياري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل ذنب وحساب بدن إن شاء الله.